بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يال دريدا من والبوا جوجتان وقتكو عايدين وعنادو وكوبية طبعا كبيشة طبعا هذا لبكون يا شغال يا طبعا قضبة حيسلة أيام برامج كين كوكو حيا وحكم إذا قضبة على مسارك أحمد مذوب ونقضي باللد لو ده هيك صدو حل بعنا دولة الصومالية ووضع عرري وزير دولة الصومالية ووضع عرري iyo siyaasiyiintii dalka oo u wada cararaya hadiiba ay dawladda xildhibaanada iyo wasiirada ay Axmed Madoobe garab taagan yihiin waa qofka nacab Axmed Madoobe waxaan idin hayaa barnaamij qoto dheer oo aan ku iftimi doono arintaasi diyaaradii ay kooxda nabad iyo nolol tiri ma duuli karto Nairobi ma aadi karto Garowe ma aadi karto waa la xanimay waa la dacweeyay waxay maanta ka duushay Nairobi waxayna ku laabatay magaalada Kismaayo waxay ka duushay Kismaayo waxay aaday Garowe waxay ka duushay Garowe waxay aaday Kismaayo maxay tahay ku tiri ku teenta kooxda nabad iyo nolol waxaan idinka hayaa qodob muujinaya oo aan rajaynayo dadka intiisa badan inay aad uga heli doonaan u diyaar garooba barnaamijka 11 bisha 10aad 2019 magacaygu waa Cabdilaahi Balwaan intaanan barnaamijka u guda galin waxaan aad ugu mahadcelinayaa shacabka Soomaaliyeed ee waqtiga ila qaatay xilligii aan xanuunsanaa alxamdulillah xanuun sidaas ma jirin hargab oo ahaa doonta kaliya iga xirnayd marka aad u mahadsantiin wax kale oo dhibaato oo aan qabo haba yaraatee malaha waxaana Allah subhanahu wa ta'ala uga mahadcelinayaa caafimaadka aan maanta ku hadlayo sidoo kale ducadiinana waan idinkaga mahadcelinayaa sidaad ii garab istaagteen ayaan aaminsanahay in shacabka Soomaaliyeed ay ii garab taagan yihiin aad u mahadsantiin Axmed Madoobe horta cali masaarkii Axmed Madoobe iyo soo noqoshada Axmed Madoobe farmaajo ka dhigay inay noqoto hiigsiga ugu adag sabab qof daacada marka aad weerarto adiga keenay dhibaatada maanta soconaysa Axmed cadaaladu ku soo baxay sinaan ayuu ku soo baxay Soomaali weyn aan jecel waligay waan ku celceli jiray waxaan idin dhihi jiray Axmed Madoobe shanta Soomaaliya jecel waxaan idin dhihi jiray Axmed Madoobe ummadda Soomaaliyeed ayaa u wada siman mar walba ku celceli jiray waxaan idin dhihi jiray soo noqoshadiisa faa'iido u tahay Soomaali weyn maanta maxaad aragtaan سعيد عبد الله دني أي 8 مليون وجيين وحي رادين حصابه وزير رئيس وجرا غير بطلانة كلا صار مايو لكن وحا أقول عدا بيرها ليلة كسر مجرتين يو دول مهانته أيو فرماجة دري 8 مليون أيو دي بيوحون يري سعيد عبد الله دني كسمايا هدو سنتين 8 مليون وقادريا سعيد عبد الله دني أو أن أمسنا هيرج جبلان مانته إنه أبال كلية 8 مليون أيو كدور صدي إنه شرفتي سا يسمع عدي سوق إلى شراب خير كسمايو داني 10 مليون ayaa la dul dhigay inuu idin yimaado 10 milyan oo tuuray idinku idin yimid labo wanaaga ku jira maxay tahay horta reer Puntland waa gob wasiirka arrimaha gudaha ayay ka mamnuuceen deegaanadooda waa gob ana ku sheegay mar walba soo idin jirin wasiirka arrimaha gudaha dawladda Soomaaliya waa wasiir hawiye iyo wasiir raxweyn dhibaatada Puntland waxa loo diray wasiirka arrimaha dibadda waxa meeshaas kaga cad reer Puntland waa dad goba oo isku tashtay una baahan ummadda Soomaaliyeed inay wax la qaybsadaan ala kulli xaal dani 10 milyan oo tuuray wuxuu tagay Kismaayo oo inta ka dhamaatay qayla dhaanta ka dhamaatay waa baroorteen xitaa waxay garan waayeen waxyaabaha qaar ala kulli xaal Muqdisho Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif waxa la yiri Garowe ka dhoofayaan waxay yiraahdeen intaan Garowe ka dhoofi lahayn haddaan baan awoodi weyna inaan Muqdisho ka dulmo xaafadayna iska joogina iskaashi muuqda ay halkaas ka muuqday waligay ma arki jirin waxaan maanta arkay ama aan shalay arkay ama aan daraad arkay walaalayaal markii la qaban qaabiyay kulankii Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh iyo wafudii Muqdisho dawladuna ay ogaatay waxay keentay sheeko ah in la kala dilo waxa la yiri Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh وأقولنا هاي لكن عبد الرحمن عبد الشكور ما أقولي حلويري رالنقو عبد الرحمن هذا كل كتان أنا قلنا نقول كتير وحكي ماذا إذا كان كلبتي وكا نبضي النلل أورنتي أي كم وقت بغذن أي عبسي أياسي فصحي وفدقة وحاول وفدقة وش الشرف لو قد ولا مجال هذا مقدشوا وأجدين وحيد عاي مدحوين فرماجو مدحرون درتدو أدس أبابا وعرّي إثيوبيا كأوي waad arkayseen marba dhinaca loo wadwatay isagoo ooyayo wuxuu dalbaday miigag duqeeyo Kismaayo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed wuxuu yiri aniga waxaan rabaa bilada nabadda inaan qaato ma doonayo inaan dagaal iyo Soomaaliya dhibkeeda ka qayb galo
waxaan maqli jiray naartu mar bay naarta kale ka cudublaysataa maanta inuu farmaajo Itoobiya u dacwado Itoobiyana ay ka cudublaysato waqtiga keenay inta kadib kismaayo lagu wada qulqulaya sidaad arkaysaan dowladda Soomaaliya ayaa Axmed Madoobe diidan ma dhihi karnaa maya maxaa yeelay xildhibaanada dowladda kismaayo jooga wasiirada dowladda kismaayo jooga ra'iisul wasaarihii dalka aamusan marka waa kuma qofka diidan Axmed Madoobe laba jeer kugu celinaya waa farmaajo waana farmaajo waxaad ka garan kartaa xildhibaanadii kismaayo joogan koramka xataa 9 bisha oo farmaajo furayay oo ogeedeen xafladii furitaanka lixaad baarlamaankii dowladda faraku tirsan joogay in ka badan intii loogu talagalay kismaayo joogan maanta aan idila hadlayo wafuud xildhibaana ayaa muqdisho ka duulay marka Axmed Madoobe dowladda ma diidanay farmaajo diidan dagaalkuna meeshii ugu adkeed ayuu marayaa على مساركو مركو عكتب إسبهايسي وين أو قدلة أي هالكاس لقى أساسي دونا إسبهايسي قاسنا وحو نقد دونا كي محمد عبد الله فرماجو وقاد وقش الله دونا محيلا مر بدر أيان كدقي شيخ شريف أدويرتي عبد الرحمن عبد الشكور تعسيق جدي حسن شيخ محمود اسكو دايدا لبجر إن العبرسو سياسيين تدلك ومدح البريتو ومدى الصوماليين بقول كيف بقول دولة نمي دوني سماهاني وجهك فرماجة ما دونيسو وحماشي كعداد مركي أو إثيوبيا يديدين يتوقيسك اسمايو أورور قبلتك إيجنا يكعودوا بالليستين مدحوينه كينيا وسكوتوري أو مدحوينه كينيا مدحوينه صوماليا تساوكو كل ماي أرنتي بدأ أيو ربي إنه كلا هالنو يا أرمق السيد جبلان حلوين أنا هذا والله هذا إنه لبع عاصمة دولار لنا إمو نيروبي بلوين نيروبي إمو هالكاسر كوضع علينا bartii waa daruuji ka bax kala kulmay maanta taariikhdu ku beegantahay 11 bisha 10aad 2019 waxa muuqanaya in halkaas ay ka muuqato guul darro muuqata oo ummadda Soomaaliyeed u baahan inay ogaadaan nacayb aan farmaajo u qaba maaha laakiin wadar iyo waaxid ya waalan waa su'aasha aan rabo inaad iga jawaabtaan